الله naxariistay saddex dhalinyaro oo kamid ah ardada wax ka barata dugsiga boardingka ee ku yaala degmada lagu hayo gobolka Awda ayaa baara saacadu markii ahayd 12 subaxnimo ay liqday badda degmada lagu hayo kadib markii koox arday oo wax ka barata dugsigaasi boardingka goob ay halkaas ugu tageen inay ciyaar saaxiibtinimo la soo ciyaaraan dhalinyaro ka tirsan dhalinta degmada lagu hayo sida uu noo xaqiijiyay gudoomiyaha degmada lagu hayo Cabdilaahi Cali Sheekh Nuur Dixo maraan khadka telefoonka kula xiriirnay gudoomiyaha degmada lagu hayo si aan wax uga ogaano qaabka ay wax u dhaceen iyo waxyaabaha sababay dhimashada dhalinyartaasi ayaa wareysi kooban oo na dhexmaray gudoomiyaha degmada lagu hayo Cabdilaahi Cali Sheekh Nuur Dixo waxa uu dhacay sida tan ma maqashay gudoomiye wararka naga soo gaaray degmada lagu hayo ee gobolkani Awdal ayaa sheegay in halkaas ay ku geeriyoodeen saddex dhalinyaro ah oo ay baddu liqday sidaan wararka ku heleno kadib roobab halkaas ka daay arimahaasi wax faahfaahin maxaa naga sii kartaa gudoomiye arintaas way jirtaa saaka waxa baarmarka ay ahayd 10 subaxnimo yaa dhalinyar ka timid dugsigan secondary ee Gabeed oo u socday inay ciyaar saaxiibtinimo la ciyaaraan dhalinyarta xarunta lagu hayo oo xal safar loogu yimid waxay u tageen badda waqtigan ay leeyihiin joognaa waqti roobdaayana badda daadad badan baa galo badda way kacsan tahay iyaguna cimilada badda garanaya ma yahayn marka afar kamid ah dhalinyartii iyo halkii badda ku qaaday marka mid kamid ah waxa soo gashay in dhalinyartii kale ee reer Gobolka ay soo badbaadiso laakiin saddexdii kale dhalinyaro nasiib darro la badbaadin karo waayo toodii bay noqoto waqtigooda waa dhamaaday waxana loo hawlgalay si meydkooda lagu soo saari lahaa alxamdulillah la kooyay tobankii duhurnimo ayaa lagu hawlanaa meydkoodana dhamaan la soo saaray dhalinyartaasna waxay ahaayeen arday dugsiga secondary ee Gabeed waxayna ka soo jeedeen tuulada la yiraahdo Fadeexno la yiraahdo marka dadkii waxa soo afadeen in meydkii Fadeexno loo keeno sanka ay ugu aasaan ambalaasada degmadan u dalanay oo saddexii meyd lagu qaaday waan gudoomiye da'dooda inteed ku qiyaasi kartaa saddexaas dhalinyarta waxay ahaayeen ilaa 16 jir iyo 20 jir inta u dhaxaysa ahaayeen dalashahan waxay ka soo jeedaan degmada loo hayo mise wax barasho halkaas u yimaadeen oo dugsigaasi goob ee boardingka ay wax barasho yimaadeen waxa degmada Bakki bay ka soo jeedaan oo tuulada Fadeexno la yiraahdo oo degmada Bakki ka tirsan degmada tuulooyinka xuduudda labada degmo ku yaala barasho ahaan dugsiga sare ee Gabeed degmada laga ku dhex yaala iyo joogeen waqtigaasi ay baddu liqaysay cid ka ag dhaweyd ama maamulka dugsiga soo raacay ama cid kale oo soo raacdo ka ag dhaweyd ma jirtaa kolay way jireen macallimiin la socday laakiin waqtigan ay dhalinyarada badda tagayeen kolay ciidamada socon labadii dhalinyaro ee kuwii secondary iyo kuwii magaalada Israaciil way hayeen badda caadi iska dabaaltay wiilka kale sheegtay ee isagu waxay ka badbaaday ee la soo badbaadiyay wax dhaawac oo soo gaaray ma jira hadda say xaalkiisu waa sidee kolay dhaawacyo badda ma lahayn dhagaxaan isada ko kale kugu dhacay laakiin se caafimaad ahaan soo gaareen oo biyuhu ka dhargay oo isla xaaladiisu ay halis tahay laga la soo saaray marka dhakhtarka la geeyay biyuhu waa laga soo wixii kalmooyin oo loo sameeyay haddana caafimaad qabaa waa taa ugu dambeyntii markaasi saddexdaasi dhalinyarta baddu ay liqday ma la aasimidkoodii mise hadda wali waa la qabaqaabinayaa aaska miidka meydkooda ambalaasada qaaday oo tuulada Fadeexno waxay noo jirtaa ilaa 150 kilomitir galabta saddexdii galabnimo markay ahayd meydku gaaray tuulooyinkii imika waxa laga soo sheegay in xawaalihii ay dhamaystirmeen oo hadda la aasay oo lagu riday meydkii aad ma tahay kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada lagu hayo Cabdilaahi Cali Sheekh Nuur Dixo oo khadka telefoonka igu waramayay Mustafa Caraale telefishinka caalamiga ee Somali News Boorama